waxaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiinayaa salaan iyo bushaaro wada socda oo ku aadan dhamaystirka geedigii dayn cafinta waddankeena. Caawa oo bisha Disembar ay tahay 13 waxaa furmay dabar, waxaa dumay deyr, waxaa furmay dabar in badan inagu xidhnaa oo inoo diiday inaynu horusocod dhaqaale ku tallaabsanno. waxaa dumay deyr muddo dheer inaga hortaagnaa inaynu dunida macaamil maaliyadeed oo rasmi ah la yeelanno. sidaa daraaddeed waxaa farxad ii ah oo aan hubaa inay dadka Soomaaliyeedna u tahay farxad iyo raynrayn in safar aad u dheer oo hawl badan oo aynu soo bilownay 2013 uu 10 sano kadib guul ku soo dhammaado, iyadoo go'aankii rasmiga ahaa ee dayn cafinta uu caawa waqti gaaban ka hor amintan aan idila hadlaayo uu soo baxay. waxa ay tahay inaynu isugu hambaliyeyno ma aha uun in culays daymeed oo balaayiin dollar ah oo inaga dhacay. waxaa sidoo kale mudan inaan isugu hambaliyeyno inaynu 10 sano soo qabannay shaqo aad u badan, aynu fulinay dhammaanba shuruudihii la inagu xidhay. 2013 markii aan geedi socodka hannaanka dayn cafinta bilownay, dakhliga dawladda ee cashuuruhu waxa uu ahaa 69 milyan sanadkii. maanta waa 345 milyan, iyadoo 5 bilood ee u dambeeyey uu sameeyey dakhligeennu koror gaadhaya 25%, halka miisaaniyaddeenna guud ay ahayd 2013 117 milyan. maanta sanadka 2024 miisaaniyaddeenna guud waa 1,870 milyan, waxaana sabab u ah tayeynta nidaamyada maaliyadeed iyo kuwa dhaqaale iyo sidoo kale iskaashiga waafiga ah ee aynu la leenahay bulshada caalamka.